kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dowladda federaalka oo lagu eedeeyay inay wado duulaan ka dhan ah maamul goboleedyada dalkan Soomaaliya xilli mar kale ay u muuqato madaxweyne xasan uu ku duulayo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland baarlamaanka federaalka oo muddaxileedkii ka dhamaaday maanta iyo mucaaradka oo qaadaya tallaabo culus oo ka dhan ah dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka ayaan saaxiibayaal ku falanqayn doonaa warkan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa muuqaalkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyne dowladda federaalka ah ayaa lagu eedeeyay markan inay wado duulaan ka dhan ah dowlad goboleedyada dalkan Soomaaliya kadib duulaankii lagu qaaday maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dowladda federaalka ayaa wada qorshe ay ku doonayso abjaridda Puntland iyo Jubbaland oo inta badan ka soo jeeda siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in villa Soomaaliya hadda ay si toos ah u doonayso in ay Puntland ku qaado weerarka ugu horeeya maamul goboleedyada marka laga soo tago ee koonfur galbeed iyadoo ciidamada federaalka oo ku sugan deegaanadaasna dhaqaaqyo xoogan ay ka bilaabeen deegaanada maamulka Puntland waxaana tani mar kale ay muujinaysaa digniino xad dhaaf oo ka soo baxaya nidaamka maamul iyo heer federaal taasoo dowladda madaxweyne xasan lagu eedeynayo in waqti muddaxileedkeeda gabaabsi yahay ay ku duuleyso dowladihii dalkan ee maamulka hoostagi jiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo eedeymo culus u jeediyay ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay wado waxa uu ku tilmaamay duulaan siyaasadeed iyo mid amni oo ka dhan ah maamulka Puntland wasiirka ayaa sheegay in Puntland ay si dhow la socoto xaaladda guud ee dalka gaar ahaan dhaqaaqyada siyaasadeed iyo amni ee socda isagoo xusay in maamulkiisu uu qaaday tallaabooyin uu ku difaacayo dhulkiisa iyo nidaamkiisa dowladeed Qarjab ayaa hoos ka xariiqay in Puntland mar walba u taagneyd xoojinta midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo iskaashiga heer qaran balse uu sheegay in rajadii laga qabay dowladda federaalka aysan u ruboobin sidii la filayay isagoo eedda weyn ee dusha u saaray dowladda madaxweyne xasan uu hogaamiyo waxaan ka sugaynay horumar amni iyo in nala soo gaarsiiyo xuquuqda magaca Soomaaliya lagu helo balse midkoodna ma aanan arag ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Puntland sidoo kale wuxuu tilmaamay in muddo ka badan hal sano iyo bar Puntland ay ku jirtay xaalad adag oo isugu jira dagaal iyo cadaadis siyaasadeed isagoo ku eedeeyay dowladda federaalka in ay ka gaabisay kaalintii looga baahnaa ee taageerada wasiirka intaas ku sii daray in ay jiraan faragelin muuqata oo uu sheegay in lagu wiiqayo nidaamka federaalka taas oo uu xusay in ay si gaar ah u saameynayso xasiloonida iyo wada shaqeynta dowlad goboleedyada dalkan Soomaaliya Cabdi Qarjab ayaa sheegay in Puntland ay qaaday jidka isu filnaanshaha maadaama sida uu sheegayba uu u dhigay aysan ka helinba dowladda federaalka ah taageeradii iyo wada shaqeynta ay mudnaayeen waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in Puntland ay sii wadi doonto dadaalada ay ku xoojinayso amniga iyo horumarka gudaha iyadoo aan ku xirnaan doonin taageero dibadeed oo aan la hubin hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayaan khilaafaadka siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada kuwaas oo salka ku haya arrimo la xiriira awood qaybsiga amniga iyo sidoo kale hanaanka doorashooyinka ee dalkan Soomaaliya waxaana ay u muuqataa in madaxweyne xasan uu ka dhabaynayo markan soo abjaridda maamulada sida weyn uga soo horjeeda nidaamka federaalka Soomaaliya Puntland ayaana hadda qalqal weyn laga dareemayaa waxaana madaxweyne Deni toddobaadkii ka hor uu si cad u sheegay inuu ka baqdin qabo weeraro toos ah uga imaan kara dhanka dowladda federaalka Soomaaliya taas oo uu sheegay inay ka dhalan karto xaalad hubanti la'aan siyaasadeed ah sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa si cad u sheegay in dowladda federaalka ah ay marnaba ka aamusi doonin dowlad goboleedyada ku dhawaaqaya inay xiriirkii u jareen federaalka taas oo uu sheegay in sinaba aysan toos saameyn ugu yeelan karin nidaamka dowladnimada oo wax laga qaban doono sida uu sheegay wuxuuna ku goodiyay dhawaan in uu haysto ciidamo awood leh oo tigi kara meel walba oo dalka ka mid ah si dowladnimada loo dhaqan geliyo sida hadalka uu dhigay dhinaca kale baarlamaanka federaalka muddaxileedka ayaa ka idlaaday maanta mucaaradkuna tallaabo culus ay qaadayaan madaxweyne xasanna wuxuu u muuqdaa inuu iska yareynayo buuqa siyaasadeed ee baarlamaanka imaan kara isagoo markaas bilaabay isku shaandhayno iyo xilka qaadis ugu sameynayo hay'adaha dowladda qaarkood taasoo dib laga bilaabay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda dowladda federaalka Soomaaliya baarlamaanka 10aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta si rasmi ah ugu soo idlaaday muddaxileedkii afraad oo
waa mudaxileedkii afarta sano ahaa ee loo doortay muddada xilhayntan madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxaa iyadana ka harsan ku dhowaad hal bil taasoo iyaduna ku eeg 15 May 2026 dhammaadka muddada baarlamaanka ayaa imaanaya iyadoo ay weli taagan tahay muran xoogan oo ka dhashay dastuurka cusub oo ay meel marisay dowladda federaalka Soomaaliya kaasoo dhigaya in mudaxileedka hay'adaha dowladda laga dhigo 5 sano taas oo ay si adag uga soo horjeesteen siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo qaar ka mid ah goboleedyada dalkan Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ay xulifo leeyihiin dowlad goboleedyada dalkan Soomaaliya ee gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland ayaa maanta si wadajir ah fariin ugu diraya beesha caalamka iyagoo ku wargelinaya in uu si rasmi ah u dhamaaday mudaxileedkii baarlamaanka isla markaana ay jirto baahi loo qabo in cadaadis diblomaasiyadeed la saaro dowladda federaalka ee Soomaaliya wararka laga helayo dhinacyada mucaaradka ayaa tilmaamaya inay doonayaan in beesha caalamku ku qanciyaan in dalku u baahan yahay hannaan doorasho oo lagu wadeeshiyey si looga fogaado qalalaas siyaasadeed oo hor leh dhinaca kale dowladda federaalka ayaa u muuqata mid aan ku socon jadwalka doorashooyinka ee la filayay iyadoo weli diiradda saaraysa qabashada doorashooyinka dowlad goboleedyada koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle xukuumadda ayaa la sheegay in ay doonayso in haddii ay ku guulaysto qabashada doorashooyin qof iyo cod ah oo ka dhaca maamul goboleedyadaas ay tusaale uga dhigi karto suurtagalnimada hirgelinta doorasho toos ah oo heer federaal ah si kastaba mucaaradka oo horey ugu balansanaa shirweyne ay kaga arrinsanayaan xaaladda dalka iyo mustaqbalka doorashooyinka dalka isla markaana ku goodinayay inay bilaabayaan doorashooyin dadban ayaa haatan u muuqda kuwo dartoodii hoos u dhacday marka loo eego in dad badan aysan jirin oo hadda aysan awood badan lahayn mucaaradka ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ilo xogaala ayaa sheegaya in mucaaradka ay weli qorsheynayaan dhaqaaqyo siyaasadeed oo cusub oo ay ka mid yihiin abaabulka kacdoono laga bilaabo magaalada Muqdisho ka hor inta aysan u wareegin shir ay ku yeelan doonaan magaalada Gaalkacyo toddobaadka soo socda sida xogta ay sheegayso waxaana dowladda federaalka weli ka dhaga adeegaysaa baaqida mucaaradka iyo sidoo kale ee hadallada culus ee loo jeedinayo ee la xiriirta in uu dhamaaday mudaxileedkii dowladda qasabna ay tahay markan in meesha laga saaro qof walba oo dowladda ka tirsanaa oo muddadiisa ay dhamaatay laga soo bilaabo baarlamaanka ilaa iyo xukuumadda oo hadda 31 cisho ay warsan tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa mucaaradka dhankooda dhaqaaqyo ciidan ay ka bilaabayaan caasimadda Muqdisho si loo saaro cadaadiska dowladda federaalka ee ku aadan inay dhex dhigto doorashooyinka isla markaana laga heshiiyo nidaamka federaalka ee dalkan Soomaaliya saaxiibayaal wanaga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxaan kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo.